waa maasantahay maxamed cali maanta waxaa la heshiinaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug inuu yimaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdiga hogaaminayo iyagoona ay ujeedka ugu soo laabanayaan magaalada Dhuusamareeb ay tahay sidii ay u kala saxiix lahaayeen gudoomiyaha guud ee Ahlusunna wal Jamaa Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya heshiis ay wada gaareen kadibna halkaas ayaa dabcan lagu wadaa in munaasabad ama markaas u gaara heshiiskaasi ka dhacdo Dhuusamareeb warbaahinta dhan ayaa hadal haysay dadka ku dhaqan Dhuusamareeb in ra'iisul wasaaruhu imaanayo Dhuusamareeb isla markaana kulamo dooni oo la yeelanayo madaxda ugu sarreeya Galmudug gaar ahaan maamulkii Ahlusunna wal Jamaa madaxdooda marka jawdu maanta sidaas ay yahay magaaladana dadka jooga hadalayn ballaaran ay u noqotay in ra'iisul wasaaraha dib ugu soo laabto Dhuusamareeb kadibna heshiis halkaas uu ku saxiixo oo la saxiixdo madaxda maamulka Ahlusunna wal Jamaa dad badan ayaa Dhuusamareeb ku soo laabanaya iyagoo doonaya inay ka faa'iideystaan doorashooyinka iyo waxyaabaha la doonayo in lagu qabto Dhuusamareeb waayahay maxamed marka ra'iisul wasaaraha iyo ururka Ahlusunna heshiiska ay saxiixanayaan ma mid ku saabsan socdaalkii hore uu ku soo gaaray ra'iisul wasaaraha Dhuusamareeb mise kulan ayaa la rajeynaya kadib inay heshiiskan shaaciyaan maxamed sida aad ogsoon tahay Dhuusamareeb markuu yimid ra'iisul wasaaruhu wax heshiis ah oo markaa la shaaciyay ma jirin laakiin waxa lagu wadaa in maanta markuu yimaado la filayo in la shaaciyo ama markaas la saxeexo laakiin madaxdu kulli waxay isla gateen sida ay warbaahinta u sheegeen ra'iisul wasaaruhu khudbado kala duwan oo ka jeedinayay munaasabado lagu xusayay 26 Juun oo ka dhacday Dhuusamareeb in doorashada Dhuusamareeb ay u xayran tahay ama ay markaas u qabsoomi ay ku xiran tahay qabsoonto in hay'adaha dawladda kala duwan ay yimaadaan Dhuusamareeb si amniga magaalada iyo sidoo kale dadka imaanaya Soomaalida ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug amaankooda ay u ilaaliyaan madaxda maamulka ee Galmudugna waa isla garteen in Dhuusamareeb ay yimaadaan hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya marka maanta ayaa markaa lagu wadaa in heshiiskaasi la saxiixo